ورشد بقعد؟ يا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما شاء الله هذا جناعسته ورشدان ورشد قليدي شيدا ورشد وهريس قليدي شيدا مركي laga reebo tiisiyaad barwaagiisa ku oli jirto wadanka haday ganacsatada nasaa u fikir lahaayeen wadanka mar hore horumar lahaa intay noo keenay caag iyo maaragtay iyo waxyaabo oo wadanka lagu sameyn karo inay maaragtay ay dibadda noo keenaan intay ku fikirayeen haday alaabtooda saa ay ula imaan lahayn warshadihii intaas oo qof oo shaqaale ayaa maaragtay shaqo ka heli lahaa alaabna waa la dhoofin lahaa marka warshadan waa warshad xamar lagu sameeyay ganacsatada Soomaaliyeed oo fikiray ayaa maaragtay hawshan galay marka hadii maaragtay qaabkan loo wada sameyn lahaa wadanka horumar fiican uu gaari lahaa warshadan weli ma aysan dhaqaaqin waa la rakibay waa diyaar hadda kadib inay dhaqaaqdo just hadda xilli abaara lagu jira galeydii ayaa maaragtay maqan marka maadaama galeydii ay maqan tahay waxaa la sugayaa maaragtay galeyda markay soo go'do in maaragtay la sameeyo haamankan waa haamankii maaragtay yani maaragtay galeyda lagu keenayay yani wax badan oo galey ah oo wadanka dhan anfacaya ayaa lagu keenin karaa marka ilaahay ku soo duwo ganacsatada inay saa u fikiraan oo qaabkan oo kale wax u sameeyaan ayaa loo baahan marka waxaan kala hadlayaa dadka ganacsatada oo haysta inay wadanka warshado waa loo baahan yahay wadanka wax soo saar u baahan yahay ayaan nolol keenin alaab diyaarsan dibadda oo anaga wadanka ku sameyn karno yaan nolol keenin walaalayaalow hal la fikiro saa loo fikiro sida wadanka dadkan ay ku sameeyaan wadankooda ay u maalgashteen oo waa galeyda yishiida wadanka galey waxay ugu baxdaa si qash camal ay ugu baxdaa marka beerleydina lacag helayaan muxuu ahaa dadka ganacsatada lacag helayaan wadankii dhaqaalihiisa maaragtay wax soo galayaan waa la dhoofinayaa marka waxaas oo dhan maaragtay lagama fikirayo marka waxa loo baahan dadka inay ka fikiraan waxyaabahaas oo kale maaragtay ganacsatada inay u fikiraan warshadan warshad fantastic ah marka inta tan ay ku soo